kaadii igu bilbila inta ugu jejeysana insana ugu jejeysana waxa sameeyay marka waa ilaahay waxaan nafta mar lay miga qaad waxaan walaashiin oo kala hooyadiin oo kala ahay ilmaha dhali doontiina ahaan sidaan ha ii galin walaalihiin oo kala ay wada naxdinle oo ka dhacday magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waa gabadh dhalinyaro oo inta ay kufsadeen dhowr nin kadibna muuqaal ay ka duubeen kadibna ay sheegeen inay rakaato ku haysan doonaan haddii ay ehelkeeda ay u sheegto haddaba gabadhan ayaa ilaa shalay oo kale waxay ka hadlaysay baraha bulshada waxa ayna sheegtay in raggaasi ay yihiin ilaa 4 nin oo ay baaskoolad madaxa ay kaga hayeen markii muuqaalkan ay ka duubayeen haddaba gabadhan oo ehelkeeda hooyadeed iyo aabaheed iyo family-geeda oo dhan ay warbaahinta ay la hadleen aynu barnaamijkana maanta aynu ku qaada dhigi doonaa waxay ka hadlaysaa qaabka ay u kufsadeen iyo sida ay muuqaalka uga duubeen gabadhani haddaba waa tuma gabadhan barnaamijkana maanta aynu ku qaada dhigi doonaa ha yeeshee daawada intayna barnaamijka u guda galin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar muuqaalkana la garee kusoo dhawaada barnaamijka gabadhan waxay sheegtay in rag baaskoolada ku hubaysan ay kufsadeen nin kamida nin mobilka ii sameynayay aan meeshiisa aan ugu tagay kadibna waxa uu sheegay ninkaasi in 4 nin oo isagu soo kaxaystay ay kufsadeen la tageen meel baadiya oo hawda haddaba markii raggan ay kufsanayeen gabadhani ayaa waxay la hadashay warbaahinta SBTV oo loo soo gaabay Somali People TV hooyada dhashay gabadhan ayaa sheegtay in aanay ka hari doonin ciddii dibka u geysatay gabadheeda haddaba waa tuma gabadhan tacadiga loo geystay ee silacaasi martay waxay tiri gabadhani anigoo mobil soo samaysanaya ayay raggani u kufsadeen kadib markii ay baaskoolada madaxayga qabteen xataa waxay tiri waxa aan miciin bidabay tiri askari balse waxba waa uu qaban waayay waxa ay u sheegtay warbaahinta inay raggan u calaacashay tiri waxaan ahay walaashiin oo kale hooyadiin oo kale gabadha dhali doontaan balse waxaas oo dhan dhag jala qumaysiin bay tiri raggan arxan ka daran oo wax xun haygu sameynina ayaan ka dalbaday bay tiri anigoo aad u qaylinaya ma jirto bay tiri cid dhag jala qaysiisay haddaba waxaa muddooyinkii u dambeeyay soo badanayay gabdhaha la kufsado oo muuqaalo laga duubayo kadibna lagu rakaateeyo si aanay u sheegin oo aanay cadaalad u helin gabdhahani haddii ay sheegto gabadh ka mida gabdhahaas waxay ugu hanjabayaan in baraha bulshada muuqaalada laga duubay lagu faafin doono gaar ahaan aaladda karaahiyada ah ee Telegram taasi oo keentay in gabadhu aamusto baqdin darteed oo aanay sheegin balse taasi waxay horseedaa gabadhaas ay u horseedaysaa in gabadhaas ay noqoto adoon la iska leeyahay oo sidii la doonoba laga yeelo markii la doono loo yeedho wixii la doonana lagu sameeyo qaarkood rag kale u dalbadaan taasoo ku sababaysa gabadha in ay guud ahaanba nolosha ay ka rasho dhigto ama ay istishaba oo ay nolosha ay nacdo oo ay guud ahaanba qoyskeeda ay ka goodo iyo ehelkeedaba haddaba gabadhan ayaa ku dhiiratay in dembigii laga galay ay la wadaagto ehelkeeda qaraabadeeda iyo family-geeda kuwaasoo ugu dambeyn garab istaagay oo warbaahinta la hadlay haddaba gabadha oo ka sheekaynaysa sida loo kufsaday iyo weliba qaabka ay muuqaalada uga duubeen raggan arxanka daran waa tan in la yar daawo gabadhan oo dhibka raggaasi u geysteen ka hadlaysa bilow ilaa dhammaad waxay sheegtay in muuqaalo xitaa hadda ay ka hayaan fara badan oo ay ka duubeen waa tan ee daawada banala yar kaadii igu bilbila inta ugu jejeysana insana ugu jejeysana waxa sameeyay marka waa ilaahay waxaan nafta mar lay miga walaashiin oo kala hooyadiin oo kala ahay ilmaha dhali doontiina ahaan sidaan ha ii galin walaalihiin oo kala ay xishmeeyay gabadha dhibsaayida la igaga dhibaneeyay waa iga silciyeen waa iga rafaadsheen bajaajay soo saarteen meel xun oo cidlaahay geysteen oo saxaraa hadday ka soo cararta way ka soo daba ordeen gabadhaydu waa iga silciyeen waa ku is istaageen waxaan ku suganahay saldhigga degmada Yaaqshiid waxaa geeskayga midigta ah fadhiya gabar Soomaaliyeed taa oo loo geystay kufsi wadareed oo ay u geysteen sida ay noo sheegtay 4 rag ah waxaan ka wareysan doonaa sida ay wax u dhaceen ugu horeen bal sidee wax u dhaceen nooga warbixin aniga horta ugu horeen waxa u imaadina mobile sameysto wiilka mobilka xoodhahay shaashada ana ii saarana taleefanka biyar waayahay halkeed mobilka ka sameysanaysay suuq bacaadan ka sameysanaayay waa tahay kadib maxaa dhacay
kadib wiilka adiga meebeelka xaana ii sameey waxay biyo la iga gaari ii sameey shaashada laga bedelaa oo dheer shaashada meeqa waa $35 ma awoodiyaan dhahay aniga wax kale ii sheegaan dhahay waa gartay adiga wiilka wuxuu dhahay taleefka iskaaga sabir ka tamago shaashadan ka sii waan dhahay sidiis iiga shaashadeeda hore iiga wuxuu dhahay ma bedeli kar taleefanka waa ka sabri kartaa oo dhahay ma ka sabrayaan dhahay aniga kadibna xoogaa walwal iyo waxyaabaas ama ay soo galay أنا waxaa sameynaa waaye ama belska la warqadan xasra daa la orda dambiga galowsaay taasna ku muunagsi maska tartiib oo soo diga ina u laabtaaray wiilku haada ay soo gal kala tuur shibaan iska dhahay dadka aanu u dilwar dadka iga celceliyeen aanan taleefka inaan ka baxsada ma rabinaan hadda waxaan soo laabtay ama belkiisa siiyo marka lacag helo uu imaado kadib meebelka waa laga qaaday waxaan isna masiiyaayo dheh adna kuma siiyay meebelka lacagtiisa kadib aniga waxa sameynaa waay waa iska soo baxay moota soo qaatay xaande fagax geey hali baroonda hala haystaan fagax geeyaan dib malaana ku wada soo bax iska soo raac wiilkii aanimi oo wiilkii saaxiibo ahayaan ma ogeey marka moota soo raac oo iska sheegay waa gartay soo baxay meebelka ku celiyaa marka xaande ma rabiyaan kadibni فأنت لقى حس على مش دابد مكسي سيدو لابد ويلو موتو لابد ديناc soo saareen gacmaha iyo afkayga qabteen kadibna sheeg nal smaacadii saayid u daareen aniga dadkayna way maqli waayeen kadib way kala fiireen daarsan juq dambe igeliyeen bal meeq qof ay ahaayeen afar ahay kii ku jiranay 5 ahaayeen kan kala ma beelka wax ma wiigo sameeyay ahay asaabi dhahay baxso asaabi dhahay meela ka baxsan meel jihada meel kasto waxa ay duhur iyo cidla kaliyo mugdi kaliyo ay meel jihada iga jira waayaan waa tahay mid ka baxsan ku dhahay waa kee kama beelka haya asaga wax ma ku geystay dhibaato maya asaab la delivery iska baxsan wuxuu sameeyay iska bax saddex markaas kadib inta kula socoto Dar es Salaam kula tagto meeqa rag ay ahaayeen afar ay ahaayeen afartoodii ma ku dhibaateen mase hal qof kaliya kulligooda gacmaha loo eegay iga qabteen dhibaateen waxaan dhahay walaashiin oo kale hooyadiin oo kale ahay ilmaha dhali doontiina ahaan sidaan ha ii galin walaalihiin oo kale ay xishmeeya haye yaa ku soo qaada marka wiilish afartooda isoo raaceen adii askari kalina aan arkay aniga askariga mid ku wareysanaay mootada moogtay wiilish waa dadegay anna ka booda mootada meesha ugu degay askari gadaashiisa dambaa tagay aan askariyo dadkan fiidiyo iga dubteen askariga waa ka nimanka iga qabo adeeg gabartan tuugo hanta haalaan meelkina ninka u laabto wax ma sii leeynaan dhahay dadkii kasta way wad ogyihiin aan taleefkiisa noo haysto wax dhan kaaleyno iska soo bax gurigeena aad rabay iska soo baxaan rabeen waa gartay sidee xaafadiina ku timid marka xaafadiina askariga ay keen askariyiinta ay soo wadeen shadii yaaqshid ani dhan naxtini buuq ay ku furnaayo oo hadda nimankii dhibka ku geystay shadii yaaqshid ay ku jiraan yaa soo xiray maali aadan والله waxa ugu mahad celiyay xadina ma haayo aad ugu mahadsan boqolkiiba boqol maxaad si gooni u dalbanaysaa marka nimankan ay sharciga oo xaq inay iiga raadiyaan dalbalaan oo waxay igu sameeyeen oo liga argudo aniga walaashooda kala sixta ana uu calaacal oo iga maqli waayeen iyo haraantii feer jirkaygan ku haraantii feer waxay ka reysteen malahan ku dhaad ana walaashiin oo kala xishmeeyo ana BC laayin kaadeeb igu bilbil inta ugu jejeysana insana ugu jejeysana waxa sameeyay marka waa ilaahay waxaan nafta mar leh miga qaadido sidoo kale waxa geeskayga midigta ah fadhiya maama dhashay gabadha la dhibaateeyay waxa ayna dalbanaysaa cadaalad inay u hesho gabadheeda sidoo kale waxa ay nooga warbixisay koriisimaha iyo dhibaatada ay ka soo martay gabadheeda meeshaan waxaa ka hadlayaa gabadha dhibanaha hooyadeedaan ahay wallaahi inaan been sheegaynin aniga ilmahayga aabahooda yimiday gabadheeda waxaan u soo diray aabaheeda way la joogtay maasha Allah gabadheeda taleefan ay soo qaadatay aabaheeda biyuga ridaasay isku naxday suuq bacad u soo qaaday gabadha dhibsaayida leegaga dhibaneeyay waa iga silciyeen waa iga rafaadsheen bajaajay soo saarteen meel xun oo cidlahay geysteen oo saxaraa hadday ka soo cararta way ka soo daba ordeen gabadheedu waa iga silciyeen waa ku istaageen gabadheedu way iga xoogeen gabadheedu wallahi bilaa tala inaan been sheegeen anaa haysta anaana dhalay gabadheedu anaa soo korsaday aabaheed maasha Allah asna laftigiisa garab waan siihay eedadeed sidoo kale garab waa igu siiyay laakiin wallahi xanuun badan anaa ku soo korsaday gabadheedan anaa haysa jiray ilaahay wuxuu ila ogaa rasuulkiisa ila ogaa gabadheeda ilmaha nimankan waa iga silciyeen haday cadaalad jirto oo cadaalad jirto gabarteeda cadaalada loo soo qaado
gabadheeda cadaalada u baahanahay gabadheeda gabar yaroo hadda soo baxaysa waaye nolol ma taqaano hadday indhaha soo taagaysay gabadheeda niyaday ka dileen nimankan xaqayga halaygaga soo dhacsho haddaa hooyo ahay gabarteyda xaqeeda halay soo dhacsho xanuuna ay haayo waa silicsanahay gabarteyda xaqeeda u baahanahay haddii dowlad jirto dowladdaas gabarteyda xaqayga ha iigu soo dhiciso aadaan ugu mahadcelinayaa ciidanka dowladda Soomaaliyeed booliiska gaar ahaan degmada Yaaqshiid taliyaha saldhigga iyo askartii soo qabatay dambiilayaashan gabadheeda u geystay kubsi wadareedkan aniga waxaan rabaa cadaalad sharciga in aniga la waafajiyo gabadheeda dhibka loo geystay xaqooda la gudo oo sharcigaas diinta islaamka wax ka baxsan ma rabo xeer ma rabo xukun aan rabaa gabadheeda waxaan rabaa cadaalad sharci baan u rabaa aniga annagu waxaan nahay dhibanayaashii gabadheena dhibkaa loo geystay ayaanu nahay waxaa marka hore mahad aan u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waafajiyey taliyaha saldhigga Yaaqshiid macallin aadan iyo gruubkiisa oo roondadii ay wareegayeen iyo mataqaanaa ilaalintii ay degmada iyo xaafadaha ay ka sameynayeen ayaa ilaahay ku asiibay oo ay qabteen nimankii falkan gabadheena u geystay taliyaha aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa wanaagaas iyo mataqaanaa ilaalintaas deegaankiisa iyo dadkiisa iyo degmadiisaba uu u hayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sokow ninkaas waxa weeyaan ayaan saldhigga inoogu soo xiray waxaanan ka rabnaa maadaama uu wanaaggaasi uu noo geystay oo 4 nin ee gabadheennii dhibkaas u geystay in uu CID iyo maxkamo iyo ma garanaysaa meel kastaba inuu nala gaaro alxamdulilaahi rabbil caalamiin arrin aad u naxdin badan ayaana qabsatay gabar baana laga kufsaday nalaga faraxumeeyey dhibaato badan baana gaartay taliyaha saldhigga Yaaqshiid macallin aadan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa bacdallah sharafta ay sameeyeen booliiska Soomaaliya booliiska degmada Yaaqshiid Yaaqshiid waa ku dhalanay waana ku barbaarnay waxaan oo kalena weligeena maana arkin laakiin annaga maanta waxaan uga fadhinaa oo ka rabnaa sidii sharafta lahayd oo uu maaragtay howlgalkiisa ugu guuleystay inuu noo dhammaystiro cadaalad baan la deeqda cadaalad baan rabnaa ilaa meesha ugu dambaysa inuu nala gaaraana ka codsanaynaa howl suluxa iyo aan nala gelin iyo musuqmaasuq aan nala gelin annagu deegaankan uma dhalan laakiin Soomaaliya nin walba meel buu ka degan yahay waxaan rabnaa cadaalad baan la deeqda gabadheena way dhiban tahay nin walba oo dhibka u gaarana waad garanaysaa uga dhiidhin lahaa ama uga dhibaatoon lahaa taliyaha waxaan ka codsanaynaa hadday CID tahay hadday maxkamad tahay inuu meel walba nala gaaro waana ku mahadsan yahay sida sharafta leh oo hawshiisa u gudanayo adduunka iyo dawladda iyo meel walbana waxaan ka codsanayaa ninkaas sharafta uu u shaqaynayo ama uu u socdo in il gaara lagu eego si fiican ummadda isaa ugu wada shaqaysan booliiska Soomaaliya ka wada codsanayaa hawsheenana inaan la dhayilsan oo aan la yaraysan gabadheen 4 nin baa kufsatay dhibaato badan baa ku taala hawshaas waa lagu istaagay wax walba dhibaato ay ku sameeyeen xataa waxyaalo kale oo ka sii xun oo aan hadda halkan ka sheegi karin baa la sameeyay waxaan ka codsanaynaa saldhigga Yaaqshiid iyo dawladda Soomaaliya oo dhan annaga calanka hoostiisa aan taaganahay in hawshaas fiidiyowga gabadha laga duubay iyo dhibaatooyin dhan way taalaa waxaan ka codsanaynaa in hawsheena aan la yaraysan waa hooyo iyo aabe Soomaaliyeed oo labadoodii carruur oo ay afka ku haysteen geeyay Soomaaliya si ay u bartaan diintooda dalkooda iyo luqadooda balse gabadhii ayaa dacwad ka gudbisay halka wiilkii uu difaacay hooyadii iyo aabihii uuna sheegay inaanu halkaa u tagnay inaanu baranno diintayada iyo dalkayaga balse gabadhii ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya lanoo geeyay si lanoogu jirdilo loona kala jaro xiriirkana leenahay dadkayaga Denmark hooyadii iyo aabihii Soomaalida ah ayaa lagu xukumay in xabsi la geliyo lagana tarxiilo waddanka Denmark haddaba sidee ayay u dhacday dacwadani barnaamijka ayaynu ku daaqaadaynaa ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadan la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka
maxkamadda magaalada Lemby ee dalka Denmark ayaa hooyo iyo aabe Soomaali ah ku xukuntay xabsi kadib markii lagu helay dambi ah inay dhaqan celis ahaan Soomaaliya ugu celiyeen laba carruur ah oo ay isdhaleen. Aabaha ayaa waxaa xabsiga kadib ay maxkamaddu xukuntay in laga tarxiili doono dalka Denmark oo uu deganaa aabahan Soomaaliyeed 26 sannadood. Sida ay qorayaan warbaahinta localka ee magaalada Lemby, labadan waalid ee Soomaalida ayaa dalka Denmark soo galay sanadii 1995 waxayna sanadkii 2018 Soomaaliya dhaqan celin ugu celiyeen laba ilmood oo ay dhaleen oo ah wiil iyo gabadh. Maxkamadda magaalada Lemby ayaa isbuucan qaaday dacwad xasaasi ahayd oo u dhaxaysay laamaha booliiska Denmark iyo waalidka Soomaalida kadib markii hooyada iyo aabaha lagu eedeeyay inay dayaceen ilmahooda ayna koritaanka dalka Denmark gaarsiiyeen dhaawac weyn. Gabadhu waxa ay tiri waa la jir dilay, halka wiilku uu yiri waxa ay soo sheegtay waa been, wax lana jir dilay ma jirto, waxaana noo geeyay Soomaaliya si aan u baranno dhaqankayaga, dalkayaga iyo diintayada, ayuu maxkamadda ka hor yiri. Maxkamadda ayaa dhageysanaysay dacwad u muuqatay inay u dhaxayso aabaha iyo hooyada oo dhinaca kuwaasoo taageero ka helaya mid ka mid ah labadooda ilmood oo ah wiilka oo la dhaqan celiyay. Laamaha dacwad oogayaasha Denmark oo dacwadooda ku dhisay sharaxaadda ay gabadha ay waalidkan dhaleen ka bixisay waxyaabihii ay kala soo kulantay markii lagu celiyay Soomaaliya. Gabadha ayaa sheegtay in la khiyaamay, loona sheegay in fasax dalxiis ah loo geynayo Soomaaliya, balse markii dambe laga qaaday baasaboorkii lana geeyay meel lagu barto Quraanka, halkaasoo ay kala soo kulantay jirdil iyo dayacaad ayay tiri. Waxayna sheegtay in loo diiday inay wax xidhiidh ah la samayso saaxiibadeed ay la soo kortay ee Denmark, lana rabay in laga tirtiro xiriirkii ay la lahayd bulshada Denmark ee ay ku dhex kortay. Waalidka ayaa iska fogeeyay eedda gabadha, waxayna sheegeen inay ilmahooda u geeyeen Soomaaliya si ay u soo bartaan dhaqankooda iyo afkooda. Waxaana sharaxaadda waalidka adkeeyay wiilka ay dhaleen oo sheegay inuu waxyaabo wanaagsan Soomaaliya ku soo bartay. Waxaan soo bartay buu yiri luqadaydii, diintaydii iyo dadkaygii iyo dalkaygii. Hooyaday iyo aabahay wax wanaagsan ayay sameeyeen, lanama jir dilin. Maxkamadda ayaa markaa ay dhageysatay sharaxaadda labada dhinac waxay rumaysatay sharaxaadda gabadha iyo cadeymaha ay soo bandhigeen laamaha booliiska, kuwaasoo ay ku jireen sawirro laga qaaday gabadha inta ay Soomaaliya joogtay. Waxayna labada waalidka ah ku xukuntay inay galeen dembiga lagu soo eedeeyay. Maxkamadda Lemby ayaa aabaha dhalay carruurta ku xukuntay 1 sano oo xabsi ah, halka hooyadana lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah. Aabaha ayaa waxaa xabsiga u dheer in lagu xukumay in laga tarxiiliyo Denmark marka uu dhammaysto xukunka. Kiiskan ayaa noqonaya markii ugu horeysay oo waalid loo xukumo kiis la xiriira dhaqan celis. Hooyadeed iyo aabaheed ayaa lagu hor xukumay, iyadoo sabab ahayd in kiiskaasi hooyadeed la xukumay iyo aabaheed. Dacwad ayay ka gudbisay hooyadeed, waa curadoodii, halka wiilkii uu difaacay hooyadood iyo aabahood. Balse gabadhan ayaa oohin qabsatay markii hooyadeed lagu xukumay xabsi iyo aabaheed oo laga tarxiirayo dalka. Hooyadii ayaa oohin la aamusin waayay. Kiiskan ayaa dhinac u dhacay iyadoo la taageeray lana qaatay dacwaddii gabadha, halka hooyadii iyo aabihii iyo wiilkiiba kiiskoodii laga soo qaaday wax kama jiraan. Haddaba daawadayaal, gabadhan ayaa ahayd gabadhoodii curad oo aadka u jeclaayeen. Gabadhan ayaa ahayd gabadh iyadoo 2 sano jirta la geeyay Soomaaliya, halka wiilku ku dhashay gudaha Denmark. Balse waxa uu wiilku sheegay inuu jecel yahay inuu ku noolaado Soomaaliya. Waa ammaan buu yiri Soomaaliya,
waxaa halkaa lanoo geeyey inaannu barno diintayada, dhaqankayaga, dalkayaga iyo dadkayaga. balse lanama jir dilin, Soomaaliya layskuma jir dilo buu yidhi. waa been iyo borobagando waxaa laga sheego Soomaaliya iyo meelaha lagu barto Quraanka Kariimka. waxaanu barannay buu yidhi hadalkii Ilaahay iyo kalaamkii Ilaahay si aan adduunyada ugu raaxaysano. markii aan joogay buu yidhi gudaha Denmark, waxaan ahaa buu yidhi qof lunsan. waxaan cabbi jiray daroogada. waxaan markasta la dagaalami jiray hooyada iyo aabbahay. waxaan ahaa qof aan noolayn oo iska socda. balse markii Soomaaliya la geeyo aan joogay muddo 1 sano ah, waxaan bartay dhaqanka dhalinyarada Soomaalida ee aan ka dhashay. waxaan bartay diintayda iyo luqadayda. waan ku nafisay, nolol habiya ayaan ku galay buu yidhi Soomaaliya. maanta buu yidhi waan iska daayay daroogadii aan isticmaali jiray, iyo buu yidhi waxyaabihii xumaan ku samayn jiray gudaha Denmark. 2 jeer ayaa booliisku xidheen buu yidhi anigoo daroogo isticmaalaya. balse hadda guud ahaanba daroogadaasi waan joojiyey. waxaan bartay diintayda. waxaan bartay luqadayda. waxaan bartay dalkayga iyo dadkaygii. hooyada iyo aabbahay wax wanaagsan ayay sameeyeen iyagoo naga naxaya. walaashay waxay sheegaysaa wax ka jira male. balse kiiskan maxkamadda Lingi ayaa aabbaha dhalay carruurtan iyo hooyadoodii iyo aabbahood waxba kama jiraan laga soo qaaday iyo wiilkii iyaga la safnaa. daawade caafimaad darro qanjirka xiniyaha ma la ildaran tahay? ma doonaysaa mise ka fikiraysaa inaad isqasho? fadlan jooji qalliinka aad rabto. shirkadda afraad ugu weyn waddankaasi Mareykanka ayaa soo saartay dawadii qanjirka oo completa, taasoo aad 3 bilood isticmaalayso. ma dareemaysaa daal fara badan, kaadida aanad hayn karayn oo aad suuliga aad kula cararayso? Manager Sacdiye Xirsi oo muddo badan ka shaqaynaysay arrimaha caafimaadka ayaa markii ugu horeysay bulshadeeda Soomaalida uga faa'iideysay inay helaan dawada qanjirka ragga. dawadan oo aad looga isticmaalo dalka Mareykanka. haddaba Manager Sacdiye Xirsi oo managerad ka ah kana tirsan shirkadaasi soona saarta dawadan ayaa bartamihii sanadkan waxay ku guuleysatay inay dawadan uu helo qof kasta oo Soomaali ah oo la ildaran qanjirka ragga. xanuunka qanjirka ragga ayaa Soomaali badan ay la ildaran yihiin guud ahaanba geyga Soomaalida iyo caalamkooda. fadlan haddii dhakhtar kugula taliyay inaad qasho, jooji qalliinka, ha ku degdegi qalliinka si aad la talin u hesho. daawade waxaad la xidhiidhaysaa Manager Sacdiye Xirsi ahna saraakiisha sarsare ee ka howlgala kana shaqeeya shirkaddan soo saarta dawadan. Sacdiye waxay ka caawinaysaa qaabkaad u isticmaali lahayd iyo sidii aad dawadan ugu heli lahayd goobta aad joogto, iyadoo kugu keenaysa bogcadda aad ku nooshahay. Sacdiye Xirsi waxay degan tahay dalka Mareykanka, waana managerad ka tirsan shirkaddan soo saarta dawadan. haddaba si aad ula xidhiidho Manager Sacdiye Xirsi, fadlan wac nambarkan WhatsApp adigoo marka hore cod fariin u diraya